dagaal culus oo u dhexeeya Soomaalida iyo canfarta waddanka Itoobiya ayaa ka socda gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. Khasaare badan baa la soo sheegayaa. Maxaa ka jira in ciidamada Itoobiya ay markaas garab siinayaan canfarta? Maxaa ka jira in ciidamada liyu booliska ee canfartu ay garab siinayaan isla canfartooda? Laakiin Soomaalidu garab ma helin, dowlad deegaanka garab kama helin, Itoobiya garab kama helin, Soomaali kale garab kama helin. Xaaladdu waa mid ku adag, dhul badan baa laga qabsaday, laakiin maantay wacdar ay dhigeen. inkasta oo ay isdifaacayaan haddana duulaanku waa adag yahay. Maalmaha soo socda maxaa la filayaa? Meesha ugu badan ee uu khasaaruhu ka socdo waa halkee? Maxay tahay ujeedka ay canfartu Soomaalidu u weerarayso? Marka laga yimaado dhulboobkan deegaanka Soomaalida ku socday qoomiyadu ay ku hayaan qoomiyadaha kale Itoobiya dariska ayagu sidaan oo kale xuduudaha ay dhulka isugu qabsadaan oo dhulboob ka dhaxeeya dhexdooda. Marka Soomaalida laga yimaado canfarta, amxaarada, oramada, qoomiyadaha kale dhulboob iyo iyagu ma isku hayaan mase waa wax un Soomaalidu u gaaray in dhulkeeda la boobo? har qabow isku mid jiidaan Itoobiya markay Jaanis isku heshaa dad Tigreega iyo amxaarada waa isku haystaan, laakiin awood ayaa la isku muquuniyaa. Maxaa ka jira in dhulka dowlad deegaanka ay qoomiyadaha Itoobiya jira ay doonayaan inay wada qaataan? Arrimahaas oo dhan baanu dul istaagaynaa iyo wararkii ugu dambeeyay, waxa cagjar laga filan karo, waxa ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida laga codsanayo, iyo waxa Soomaalida dowlad deegaanka iyo Soomaali weyn ilaa Jabuuti looga baahan yahay. Arrimahaas oo dhan baanu dul istaagaynaa iyo damaca Itoobiya ee dhulka Soomaali galbeed ilaa Soomaaliyaba ku wajahan. Jaamacukun oo ah wariye arrimaha Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya geeskaba si weyn ugu dhuundaloola, gaar ahaan arrimaha Itoobiya si joogta uga hadla. Gobolka canfarta iyo dagaalkan Soomaalida u dhaxeeyana si weyn isha uga hayay ayaan ka waraysanayaa. Jaamac soo dhawow, bal horta wararkii ugu dambeeyay canfarta iyo Soomaalida dagaalkooda nala wadaag. Shuka waa mahadsan tahay. Saaka Hiraati waa beri ayay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida iyo shacabka galbeedka City iskaashanaya waxa ay ku dhardhaareen xarumihii ay muddooyinkii ugu dambeeyay kusoo siqayeen maleeshiyaadka canfarta ee galbeedka City. Dagaal qaraar oo bilowday aroortii ayaa goordhow galabtaa soo gaaray, welina si goosgoos ayuu u dhacayaa, laakiin inta badan ciidanka deegaanka iyo shacabka iskaashanaya guulo wax ku ola ayay dagaalkaasi ka gaareen. Waayahay, marka meesha uu dagaalku ka dhacay waa xaggee deegaanada iyo haddaad noo tilmaanto? Shukow, dhulku waa dhul ballaaran. Dhulka canfartu haysteen dabcan ay kusoo siqayeen 3 caag ayuu dagaalku ka socday. qaybtooda 4 ayay lahaayeen, laakiin inta xooggeedu wuxuu saarnaa 3 caag. Wuxuuna ugu sii xoog badnaa aaga Garbaciise oo ay ciidamadu la wareegeen Madane, Jamiraley, Jamariile, Madaregto iyo Goroyaale oo ay saaka gacanta ku dhigeen. Sidoo kale waxa ay qabteen oo ay ka kiciyeen 7 xeryo ciidan oo ay canfartu lahaayeen oo uu qayb ka yahay Galiile. Sidoo kalena xero ciidan oo dabcan saarneed Garbaciise oo ay aad ugu mintidayeen, kana mid ahaa xeryaha ciidan ee ay canfartu in muddo ahba ku hilbadireysay ayaa lagala wareegay saaka. waana maqorbaasho halkaasi xeradaasi iyo xero kale oo iyaduna Gaaniya la dhaho. xeryahaas waxa ay badankood markaa saaran yihiin xagga ay Garbaciise. Dabcan ciidanku way dhaafeen oo Garbaciise dusheeda ay xabadu ka ridayaan sida aan ka xiganay qaar ka mid ah dhalinyarada dagaalka ku jirtay. Shukow waa dadka deegaanka oo aad loo qalabeeyay loona hubeeyay. ciidamada liyuga dabcan xeryahooda ayay iyagu ku sugan yihiin. waase laga yaabaa inay kab soo siiyaan haddii ay xaaladdu sidaan kasii xumaatay, laakiin waa dadka deegaanka ayaa inta ugu badan ee hadda howlgalladani ku jirto sidaan xogaha ku helino. Waayahay, marka ciidamada canfarta ayagu ma kuwii deegaanka canfarta iyo shacabka isgaashanaya weerar soo ah? muddooyinkanba Shukow ciidanka canfartu way soo siqayeen sidii gobolka 3 degmo ee Garbaciise, Cundhufa iyo Cadeeta ay u qabsadeenba. way kasoo gudbeen dhulkii oo waxay soo gaareen dhul hor leh oo dhowaan la magacaabay degmooyinkii Mustafa Cagjar 2 sano ka hor uu ku dhawaaqi jiray Daymeed iyo degmooyinkii uu dhowaan ku dhawaaqay Daymeed iyo Dhuun Yar
ayay dabcan soo dhaafeen way soo gaareen qabalayaal ka tirsan ayay gacanta ku dhigeen marka in muddo ah way soo siqayeen oo dhul aan dhulkooda ahayn ayay canfartu weerar kusoo qaadayeen hadday muddo yar sii socon lahaayeen oo ay weeraradan sii wadi lahaayeenna dabcan xaruntii gobolkaasi city shinil ayayba soo gaari lahaayeen oo labada dhinac labada daraf ay kasoo kulaalayeen marka way u dulqaadan waayeen dabcan dadka deegaanka waana gulufkii ugu dambeeyaan is oran karaa oo ramadaanta intii ay soo qaadayeen weerarada ay ku rogaal celiyeen guushaana ay ku gaareen inkastoo aysan weli garbaciisa gelin waayahay jaamacow dagaaladan in badan ay soo noqnoqdeen dad badan baa ku dhintay oo labada dhinaca iyada marka laga yimaado labada deegaan oo laga yaabaa inay labada dhinac la kala safan yihiin dowladda federaalka ee waddanka Itoobiya iyadoo arrintan soo kala dhexgashay si dagaalkan xal loogu helo ama loo joojiyo dowladda federaalka dhinac marka laga eego hortay waxaaba la is oran karaaba ayada ayaaba wax ka og wax ka abaabulaysa dhinacna hoosaasinaysa Soomaalida dhanna canfarta ku garabsiinaysa dulmiga ay wadaan marka dowladdu markii canfar wax la gaarsiiyo ama la weeraro ama dhul laga qabsado ayay bilaabaan inay soo kala dhex galaan balse marka ay dabcaan in Soomaalida la weeraro ama weerar lagu qaado inta badan way isgaabiyaan marka dowladda federaalka ma moogana ciidan military ayaa soo kala dhex dhigtay ciidanka militariga iyagoo canfartii dhulkii haysta ayaa ciidanka militarigii la keenay meeshii ay u kala xadeeyeen way isaga baxeen waana sababtaan hadda ay canfartu usii laba jibaareen weeraradooda oo ay kusoo qaadayaan shacabka haraadiga ah ee ku sugan duleedka garbaciisa iyo dan la helay ilaa qaraf in dhawaalaba waxaa la arkayay ilaa iyo xadka mooyaale ilaa iyo halka city dad oromooyinka ama qoomiyadahan kala duwan ee Itoobiya oo deegaanada Soomaaliya duulaan ku ah kuwa qabsanaya marka jaamacu duulaankan dhulboobka ee xuduudaha ka socda maxaa loo fasiri karaa ama loo arki karaa waa wax weligeed way soo ma ahan waxaan is oran karnaa dhowrkii sano hadda ugu dambeeyay 5 sano hadda ugu dambeysay way sii badiyeen oo malaha mobaylaha bay ku arkeen gobolkii ma jamhadaha hubeysan ayaan joogin ma ciidankii deegaanka oo la dhufaanaya ayay arkeen ma aqaan adigu waxaa la is oran karaa waxay arkeen goljilac Soomaalida ay leedahay ayay ka arkeen xilliyadii hore kuma soo dhiiran jirin adigu taliskii ka horreeyay bal ayaga ayaa laga baqi jiray ciidamadooda oo deegaanada dariska weerar ku qaadi jiray Oromiya Canfarta dhiiranaantan markaa maysan jirin balse waa dhulboob hor leh oo ay wadaan qorshahan weligood way soo wadeen waana sababta ugu weyn ka tafaraaruqa Soomaalida deegaanka dhex taalla iyo habacsanaanta maamulka ugu dambeyntii jaamacu marka la eego gudaha dowladda deegaanka oo kaleeto sidee looga falcelinayaa oo dadka shacabka iyo siyaasiyiinta iyo ururada iyo sabay u arkaan marka dagaaladan canfarta iyo dadku ku baraarugsan yihiin mase waa la iska amsan yahay oo aad ba looguma soo jeedo abaabul hadduu bilowdo waxaa kan shahelaya canfarta abaabulkoodii hawsha u wadaan qolyaha maamulka iyo shacabka ayaa qurux badan dabcan waana midda ay hadda gulaha ugu badan ay ku gaareen abaabul haddii uu bilowdo indhihii dowladdii federaalka iyo waxay ku soo jeedinaysaa oo ay oranayaan waa kuwaasa Soomaalidii weerar ku soo ah gobolkii waana tactica lala bartay weeye berigii hore Soomaalida markii weerar sidaas oo kale canfarta ay u soo qaado xamaasad inta ay qaada waxay bilaabi jireen abaabul berihii bulshada ayay soo geli jireen iyaga oo raashin biyo wax walba qaadaya ayaa la arki jiray dabcan waxaa looga dhigi jiray markaa markhaati nool oo la dhihi jiray waa kuwan abaabulka ay wadaan halka canfarta aanan la dareemi jiray abaabulkooda marka shaxdii ayaa lala dareemay canfarta oo ay la taatiig ciyaareen qaabka ay sameeyaan ayay iyaguna sameeyeen oo maamulku uu joojiyay gabi ahaanba in abaabul la qaado waayo jaamacu adoo raalli ah marka laga yimaado dhulboobkan deegaanka Soomaalida ku socday qoomiyadu ay ku hayaan qoomiyadaha kale Itoobiya dariska ayagu sidaan oo kale xuduudaha dhulka isugu qabsadaan oo dhulboob ka dhaxeeya dhexdooda marka Soomaalida laga yimaado Canfarta Amxaarada Oromada qoomiyadaha kale dhulboob iyo iyagu isku hayaan mase waa wax Soomaalida u gaaray in dhulkeeda la boobo
niyo har qabo isku mid jiidaan Ethiopia markay Jaanis isku heshaa dad Tigrayga iyo Amxaarada waa isku haystaan laakiin awood ayaa la isku muquuniyaa canfar iyo canfar qoomiyad kale hadda dhul isku haysato Oromo kuma dhici karto oo ma weerari karto qoomiyadaha kalena waa qoomiyada isaa looga turuq weyn yahay marka waa Tigray oo hadda dagaal ka soo noqday oo ka soo doogaya oo Amxaara dhulkoodii dib uga soo ceshanaya inkastoo dawladda hadda ay ku dhex jirto iyo Soomaaliya hadda loo turuq sheeganayo qoomiyad kale hadda dhul laga boobayo oo isweeraraysa ama dhul laga kala qaadanayo ma jirto ayaga Amxaarada iyo Oromadu way isriixaan oo way isku qabsadaan laakiin jamhade isku abuureen jamhadahaas ayaa si dooxataa isku leysa laakiin deegaanka Soomaalida ayaa labada dhinacba hadda laga jafayaayo dhinacna Canfar ay ka jafaysaa dhinacna ay Oromo ka jafaysaa ciidankoodiina la dhufaanayo la yiri farha qaadina aad baad u mahadsan tahay jaamac